xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken ayaa gaaray magaalada Beijing dalka Shiinaha. diblomaasiga ugu horeeyay ee Mareykan ah oo booqda dalka Shiinaha 5 sanadood gudahood iyagoo ay jirto xiriir laba geesood ah oo aan wanaagsanayn iyo rajo xumo laga qabo horumar kasta oo laga gaaro kaas oo salka ku haya liiska dheer ee khilaafaadka ka dhaxeeya labada wadan dhinaca dhaqaalaha ugu badan adduunka inkastoo uu dib u dhigay safarkii Febraayo kadib markii uu buufimo laga shakiyay Mareykanka gudihiisa lagu arkay isla markaasina uu Shiinuhu hawada Mareykanka u soo diray. Blinken waa safarkii ugu sirreeyay ee dawladda Mareykanka Shiinaha tan iyo markii madaxweyne Joe Biden uu qabtay xafiiska Janaayo 2021 inta uu joogo ilaa Isniinta waxa la filayaa in uu la kulmo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Shiinaha Qin Gang. diblomaasiga ugu horeeya ee Shiinaha Wang Yi waxa kale oo suurtagal ah in uu la kulmo madaxweynaha dalkaasi Shiinaha Xi Jinping isagoo oo doonaya in uu sameeyo khad isgaarsiineed oo furan oo waara si loo hubiyo in xifiltanka istiraatiijiyadeed ee labada dal aanu horseedin colaado kale. mowduuca laga yaabo in laga wada hadlo waxa ka mid ah in ay kordhiyaan duulimaadyada ganacsi ee ka dhaxeeya labadaasi dal. sarkaal Mareykanka u hadlay isagoo oo ku tilmaamay tallaabooyin gacan ka geysanayaan kor u qaadista xiriirka dadka inkasta oo saraakiishu aanay saadaalin wax horumar ah.